waxaa la jooga Ustaad Cabdikariin oo ah aas-aasaha shirkadda Askuni.com oo ah shirkad ka shaqeysa arrimaha waxbarashada ardayda Soomaalida ah adduunka oo dhan meel kasta ay ka joogaan. waxaan dhex joognaa hadda jaamacadda ma joogno hotel yaana si kale loo fahmin. Ustaad waxaa warbixin kooban naga siisaa jaamacadda aan hadda joogno. xasan horta waa mahadsan tahay. jaamacadda haddaan joogno waa Istanbul Medipol University. jaamacaddan waa jaamacad bareefada. waxay ku taallaa qaybta Asia ama qaybta Aasiya qaba soo yaqaano ee magaalada Istanbul. waxay ku bilowday jaamacadnimadeeda kulliyadaha caafimaadka. markii dambe dib ayay waxay ka furtay kulliyadaha social science iyo engineering-ka. waxayna ku jirtaa jaamacadaha ugu awooda badan ee dalkan Turkiga. oo marka la fiirsho xagga macallimiintooda professorada marka la fiirsho xagga ardayda jaamacadda dhigata quality-geeda runtii waxay ku jirtaa jaamacadaha ugu tayada sareeyo. haddaan number ahaan kugu sheegana sanadkan liiska lagu dhawaaqay kala sareynta jaamacadaha waxay uga jirtaa 65 jaamacadood ugu sareyso. jaamacadaha bareefadka marka la fiirsana waxay ku jirtaa 12 jaamacadood ee bareefadka ah ee ugu fiican dalka. sidoo kale jaamacaddan maadaama ay caafimaad ku bilaabatay waxay leedahay 10 isbitaal 15 ay lahayd laakiin 5 waxay ugu deeqday dowladda. sidoo kale jaamacaddan hadda aan joogno Istanbul Medipol waxaa iskale qoyska wasiirka caafimaadka hadda joogo iskale oo xataa hadda isaga xafiiskiisa kor ku yaala jaamacaddan joogno qayb ka mid ah xafiisu ku leeyahay oo ahaa wasiirka caafimaadka. marka runtii inaad soo booqatay ama soo aragtay maaqaane shaybaaradooda wuxuuda qaaban caadi ah waaye fasaladooda jaamacad lamida in la helo way adag tahay. marka inta hadda aan ka sii karo hordhac ahaan waa intaas jaamacadda Medipol. waayahay luuqadee lagu dhigaa jaamacadda? jaamacaddan waxay ku baxdaa luqadda Ingiriiska. يعني maadooyin af Turkish ku haysaa way jirtaa laakiin maadooyinka ugu dalabka badan sida maadooyinka caafimaadka sida medicine-ka, dentistry-ga, pharmacy-ga iyo kulliyadaha kale la soo xiriiro health care management, physiotherapy, nursing wixii la soo xiriiro dhan waxay ku haysaa luqadda Ingiriiska. sidoo kale waxay English ku haysaa dhammaan kulliyadaha engineering-ka civil ha noqoto, computer ha noqoto, electric ha noqoto all English ku wada hayaan iyo kulliyadaha social science-ka sida business administration-ka, international trade-ka iyo kuwa la soo xiriiro. sidoo kale waxay haysaa maadooyin jaamacadaha qaar aysan haynin sida maadada biomedical engineering oo kale jaamacaddan 100% English ku haysaa ama molecular biology and genetics oo kale. marka runtii jaamacaddan 100% English ku baxda waa la dhihi karaa haba haysa deerto maadooyin qaar oo Turkish waa imisa qiimaha ardayda caadiga ah dadka ay ku dhigtaan haddii shirkaddan Askuni aad adiga madaxda ka tahay ay soo maraan qiimoodu? horta jaamacaddan waxay leedahay qiimo kala duwan ay ardayda ajaanibta siisaa. qiimaha ardayga ku markuu jaamacadda soo xareysanayo ay siiso waa 20%. laakiin ardayga markii uu ka soo xareysanayo anaga xafiiskeena oo kale uu ka soo xareysanayo waxay siiyaan qiimo dhimis ka duwan 120 kaas oo gaarayo 140 ilaa iyo 50%. waliba Soomaalida qiimo dhimis gaaraysiiyaan jaamacaddan oo ka duwan ardayda kale qiimaha ay siiyaan. wadamo yar oo Soomaaliya iyo Falastiin iyo ay ku jiraan qiimo dhimis gaaraysiiyaan maadaama ay yihiin wadamo muslimiina ayna rabaan in arday badan ee wadamadaas ay ka keenaan oo ayna tababaraan runtii waxay siiyaan qiimo dhimis gaara. midda ka rabo inaan kuu sheegaa jirto oo ah jaamacaddan waxay leedahay scholarship loogu talagalay ardayga hadduu arday fiican yahay darajo fiican wato imtixaanada SAT-ga oo kale GCE oo kale oo darajo fiican wato jaamacaddanna waxay siinayaan markaas ama scholarship 100% ama scholarship 150%. marka jaamacadda tayadeeda waa halkaas. waayahay su-aasha xitaa ku weydiina waxaa waaye imisa arday ayaa dhigata hadda jaamacaddan hadeertaan aan taaganahay 2021da bishiisa 6aad waxaa dhigato 36,000 arday. 36,000 arday hadda jaamacaddan dhigato 2,800 waa ardayda ajaanibta. runtii marka la fiirsho 2,800 waa number aad u weyn marka jaamacad bareefada la fiirinayo. waliba jaamacaddan waagii hore ardayda ajaanibta ma qaadan jirin kaliya 2 sano ugu dambeysay ay bilowday waxay aaminsaneyd haddii ardayda ajaanibta ay qaadato in quality-gooda uu hoos u dhacayo. saas awgeed aad uma aysan qaadan jirin laakiin hadeertaan ardayda quality-ga leh oo ajaanibta ah inay qaadatay bilaabatay 2 sano gudaheedna waxay ku heshay 2,800 arday iska diiwaan gelisay. marka totalkada ardaydeeda waa 36,000 arday. waayahay ma leedahay deegaan ardayda
waa leedahay weliba deegaano waxay leedahay ka duwan jaamacadaha kale deegaano qaab hoteela camal ay leedahay siiba gabdhaha hadda wiilasha weli lama dhammaystirin mid yar oo horey jaamacad u lahaa jirtay hadda wiilashu degaan laakiin gabdhaha runtii kooda waxaan dhihi karaa hotel camal waaye qiimihiisana xoogaa marka si loo fiirsho waa qaali maadaama jaamacaddu ay tahay jaamacad barayfada xoogaa qiimaheedu ma jabna xagga deegaanka ma kala fiirinayo laakiin wiil iyo gabar haddeerba arday qofkii u baahan waa loo heli karaa waaya sidee ardayda ku imaan karaan jaamacadda marka qofka hadda daawaday jaamacadda ee raba inuu imaado imaanshaha waxaa waaye qofka wuxuu ku imaan karaa laba qaab waa qaabka koobaad inuu xafiisadeena nagu soo booqdo oo qaabkaas oo markaas jaamacadda kusoo xareysto kadibna anaga aan keeno aan diiwaan gelino iyo qaabka labaad oo ah inuu websitekeena kasoo xareysto si markaas websitekeena askin.com si markaas uu anagana aan hadhow u keeno qiimanimo si wacanna oo jaamacadda u helo jaamacaddan mise meel ayay xarumo ku leedahay jaamacaddan waxay xarumo ku leedahay magaalo ahaan haddii la fiirinayo waxay xarumo ku leedahay Ankara iyo Istanbul laakiin haddii Istanbul oo kaliya aan fiirinayno 4 meel ay xarumo ku leedahay waaya ardayda lacag ma ka qaadaan mise lacag la'aan ayaad ku keenaysaan haddii aad jaamacaddan usoo xareynayso xasanow horena inaan kugu sheega oo maleeya anaga agensigeena jaamacadaha barayfadka ee 100% aan la shaqeyn hadda jaamacaddan oo kale Afrika anaga u qaabilsan yani Soomaaliya agensiga kaliya ee heshiis kula jiro saddex labadii sano la soo dhaafay waa anaga saas awgeed official maadaama aan nahay anaga lacagteena jaamacadda bixiso saas awgeed ardayga wax lacaga kama qaadno maadaama official aan nahay jaamacadaha barayfadka tan kaliya maahan dhammaantoodna ardadeena wax lacag application ama wax lacag khidmad ah midna ma kama qaadno halkee hadda idin kala soo xiriiri karaan qofkii ina daawanayo qofkii hadda ina daawanayo wuxuu nagala soo xiriiri karaa xafiiskeena Hargeysa iyo sidoo kale xafiiskeena Muqdisho iyo xafiiskeena Istanbul ardada Afrika ku nool wuxuu nagala soo xiriiri karaa xafiiskeena Nigeria Abuja xafiiskeena Sierra Leone Freetown iyo sidoo kale Casablanca Morocco iyo sidoo kale waxaan xafiis kale ku leenahay oo wadamada Afrika inta badan xooga saaro Bamako Mali marka inteena badan Soomaalideena maadaama aysan wadamadaas joogin waxay nagala soo xiriiri karaan Hargeysa iyo Muqdisho iyo Istanbul si gaar ah jaamacaddan maxay kaga duwan tahay jaamacadaha kale halkiis oo dadka kaga duwan waa su'aal fiican waana sugaay inaad su'aashaasi weydiiso runtii jaamacaddan waxay uga duwan tahay jaamacadaha kale waxyaabo waxaa jiro aan dhahno magac anaga u bixinaa jiro oo ah jaamacadda ka yaabsatay ardada ajaanibta iyo ardada turkida aan dhahnaa jaamacaddan sababta uga yaabsatana waxaa waye runtii waxyaabaha ay samayso jaamacad samaysaa way yartahay tusaale ahaan haddaan soo qaato ardayga hadduu fasal ku dhaco bilaadan leeyahay sanadka koobaad waa la dhici karaa waxbaa dhici karo ama medicine ha noqoto ama engineering ha noqoto ardayga hadduu dhaco ay noqoto inuu maadadaas dib u soo wada qaato dhammaan fasalkaas wax lacaga ma bixinayo lacag la'aan 20,000 ha noqoto maadadaada 5,000 ha noqoto wax muhiim ma ahan ardaygu wax lacaga ma bixinayo waa jaamacadda kaliya abaal mariso qof fasalkiisa ku dhacay qofka markuu fasalkiisa ku dhaco abaal mariyana jaamacaddu waxay aragtay in ardaydu ay dadaalaan oo ardaygaas uusan mar dambe dhicin maadaama lagu sharfay in asagoo dhacay 100% scholarship la siiyay sidoo kale ka dhacay oo kaliya ma ahan ardayga baaso oo fasalkiisa kaalinta koobaad u galo sidoo kale sanadkaas oo kaalinta koobaad gala sanadka ku xigo wuxuu jaamacaddan ku dhiganaa 100% scholarship ardayga 100% macnaha ardayga kaalinta labaad galay asagana wuxuu ku dhiganaa 100% scholarship ardayga kaalinta saddexaad galay wuxuu ku dhiganaa asagana sidoo kale 25% sidoo kale ardayga sanadka dhamaadkiisa sanadka koobaad markuu dhamaado 2.5 ilaa 2.9 inta u dhaxeeya keenana wuxuu xaq u leeyahay inuu diyaariyo maado kale engineer nu diyaarnay maada kale social science lacag la'aan ku diyaarsan karaa yani adoo computer dhiganayo business administration waa qaadan kartaa adoo wax lacag aysan ka bixin marka taasna waa hadaa keentid 2.5 yani 60% ilaa 80% inta u dhaxeeyo hadduu sanadkaas ardaygu keensado maada kale iska dhiga karaa oo jaamacadda ka tirsan asagoo aan jeebkiisa wax lacag aysan ka bixin taasna jaamacadaha sameeya runtii waa ay yar yihiin guud ahaan intaas waxay tahay dhigi karaa wax ugu waaweyn oo ardayda u sameeyaan aad buu u mahadsan yahay daawadayaalkaas wuxuu ahaa Ustaad Cabdikariim aasaasaha shirkadda Askuni oo ah shirkad ka shaqeysa arrimaha waxbarashada waxaan ku sugannahay magaalada Istanbul gaar ahaanna jaamacadda Istanbul Medical University oo uu maanta ardayda Soomaaliyeed u soo bandhigayay jaamacaddaas sida ay tahay quruxdeeda iyo waxa laga faa'iidi karo intaana ka bixin hal midaan rabaa inaan u sheego ardaydeena na daawanayo xareynta jaamacaddan way socotaa wayna dhammaan rabtaa sidaas awgeed qofkii u baahan in loo xareeyo fadlan yuusan hilmaamin inuu sida u dhaqsiyaha badan nagula soo xiriiro siiba hadduu rabo kuliyadaha caafimaadka sida medicinka dentistryga iyo kuwa lamidka ah waayo hadda maadooyin qaar dhammaadaya jira laakiin la sugaayo in arday cusub
la furo mar dhow marka dhammaantiin waa idin wada sugaynaa waa mahadsantiin